taliyaha ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Kismaayo halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo saraakiil ka tirsan ciidanka qalabka sida sidoo warkan inoogu faahfaahinayo wariyaheena Axmed Mercury wafdigan oo badnaa saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka una hogaaminayay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeya Gaas Daahir Aadam Cilmi Indha Qarshe oo barqanimadiisa ka soo gaaray garoonka diyaaradaha ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Kismaayo waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay saraakiisha ciidamada xoogga dalka qaybta 43 ee Jubbaland saraakiil ka tirsan ciidanka qalabka sida ee Jubbaland inta kadib taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa salaan sharafeed ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kuwa Mandoska soo dhaweyn kadib taliyaha iyo saraakiishii la socota ayaa loo gudbiyay qaybta nashashada ee garoonka halkaas oo ay saxaafadda kula hadleen waxaana ugu horeyn warbaahinta la hadlay Sareeya Guuta Cabdi Mahdi la taliyaha madaxweynaha Jubbaland ee dhanka ciidamada isla markaana sheegay in ay ku faraxsan yihiin imaashiyaha taliyaha guud ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ugu horeyntii waxa sharaf weyn ku tirnaa maanta Jubbaland ahaan iyo qaybta 43 intaba inuu halka nagala soo qayb galo taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed taliya marka koowaad waxa ku leenahay soo dhawow adiga saraakiishaadaba halkan waa xaruntii kumeelgaarka Jubbaland magaalada Kismaayo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay imaatikaaga adiga iyo saraakiishaada hogaaminayso waxaan runtii rajaynaynaa in maxay ahayd safarkaaga uu noo noqon doono safar qiimo weyn iyo waxtar intaba noqdo la taliyaha madaxweynaha Jubbaland dhanka amniga ahna kusimaha taliyaha ciidanka xoogga dalka qaybta 43 ee Jubbaland Sareeya Gaas Yuusuf Xuseen Dhuumaal oo isna hadal kooban jeediya ayaa kaga mahadceliyay imaanshiyaha Kismaayo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed mudana taliye wixii hawl ah waan iswaraysan doonaa waxaan wakiilkaaga ahaa abaabulka qaybta xoogga dalka Soomaaliyeed ee 43 meel fiican bay noo maraysaa wakiilnimadaasna waxaa keenay iyadoo qaybtu aysan lahayn taliyihii hore oo qaybtana la bedelay taliye qayb cusub oo kalena uusan imaanin waxyaalo fara badan markaa ay qaybta abaabulkeeda hoos u dhacay abaabulkaas meel fiican baan marinaynaa si khaas ah uga wada hadli doonaa Major General Daahir Aadam Cilmi Indha Qarshe oo ugu dambeyn hadal kooban oo jeediyay ayuu uga mahadceliyay saraakiisha ka qayb qaadatay soo dhaweyntiisa waxaana faahfaahin ka bixiyay ujeedada socdaalkiisa waxa ay ku qotonto marka intaas ka soo tago meeshan Kismaayo waxaan u nimid inaan kormeerno xaqiijino ogaano xaaladda dhabta ee qaybta 43 oo ah qaybaha ugu muhiimsan xoogga dalka Soomaaliyeed sababta aan u leenahay waxa weeye waa meesha ugu badan ee ah saldhigga ama xudunta nimankaas argagixisada ah marka khasab bay ku tahay inaanu aad iyo aad ugu kurgalno xoojino gacan siino wixii ay u baahnay qaybtan sida ay u xoreyso maxaan ku radaa dalka gobolkan ee Jubbaland waxaan aaminsanahay haddii ciidankan Jubbaland uu awoodiisa helo inuu ku filan yahay inuu dhameeyo nimanka argagixisada kana qaado dhibta shacabka Soomaaliyeed ee saaran waxaan ognahay al-shabaab dhaqankeeda waxaan ka warqabnaa say u dhaqanto waxaan ka warqabnaa ujeedada ay ka leedahay waa argagixiso marnaba aan ogolayn in ay ummadda Soomaaliyeed horumar hesho in ay ummadda Soomaaliyeed nabad hesho in ay ummadda Soomaaliyeed ay gaarto wax absolute wax kasta oo nolol ah ay gaarto aan ogolayn marka xoogga dalka Soomaaliyeed dawlad goboleedka Jubbaland iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed marna ma ogolaan karo dulgaas inuu ku noolaado taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo wafdigiisa ayaa loo gudbiyay aqalka martida magaalada Kismaayo halkaas oo ay kulan saxaafadda dibad joog ka ahayd kula qaateen madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Cali Maxamed Axmed Mercury Galmudug TV Kismaayo daawadayaal qodobka dibaddana